madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulamo kula yeeshay qaar ka mid ah safiirada wadamada caalamka u qaabilsan Soomaaliya. Cabdiraxmaan Faroole ayaa safiirada wadamada caalamka uu ka mid yahay safiirka Britain ee Soomaaliya kala hadlay arrimaha maamulka Puntland, Soomaaliya iyo sidii loo aqoonsan lahaa Jubbaland. Markii kulamada ay soo dhamaadeen ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Burhaan Cilmi Falag oo ah wasiir ku-xigeenka deegaanka, dalxiiska iyo duurjoogta Puntland oo ka mid ahaa xubnihii wasiirada ee la socday madaxweynaha maamulka Puntland. xalayto isla markii madaxweynaha uu yimid waxa uu la kulmay madaxa ergada Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi, Master Swine iyo xubno ka tirsan safaaradiisa. halkaana waxaa lagaga hadlay arrimo aad u ballaaran oo khuseeya danaha ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan marxaladda xasaasiga ah oo hadda ay marayso dalka uu marayo Jubbaland, arrinta Jubbaland iyo danaha Puntland iyo dawladda Mareykanka ka dhaxeeya. shirkaasoo muddo 2 saacadood ku dhow soconayay, runtii qodobadii lagu soo qaaday dhammaantoodba afgarad wanaagsan baa ka soo baxay. isaakana waxaa madaxweynuhu la kulmay 15 safaaradood oo ah safaaradaha European Unionka ay ku leeyihiin safiiradooda magaalada Nairobi. ayagana shir lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya, arrinta Jubbaland, Puntland iyo xiriirka ka dhaxeeya European Unionka ama midowga Yurub ayaa si qoto dheer loogu lafaguray. ayadana is-afgarad ayaa ka soo baxay. waxaa kaloo madaxweynaha iyo wafdigiisu ay maanta la kulmeen ergeyga Soomaaliya u qaabilsan ururka midowga Afrika oo isagana laga wada hadlay arrimaha howlaha ay ka hayso ururka midowga Afrika, gaar ahaan arrinta Amison iyo siday gacan uga geysan lahaayeen amniga tababarka ciidamada ammaanka oo Puntland. ayagana si weyn ayaa la isugu afgartay. waxaa kale oo madaxweynuhu uu la kulmay isla maanta safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya dalka Soomaaliya oo haddadan ay wada hadal ku jiraan. ayagana waxaa laga wada hadli doonaa xiriirka ka dhaxeeya Puntland iyo dawladda Ingiriiska iyo guud ahaan dawladda Ingiriiska oo kaalin firfircoon ku leh arrimaha Soomaaliya. waxaa madaxweynuhu kala hadli doonaa haddii Ilaahay idmo arrimaha Jubbaland iyo Puntland iyo marxaladda xasaasiga ah oo maanta dalku guud ahaan uu marayo iyo arrimaha federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba danaha ummadda Soomaaliyeed. TV-ga Kalsan ayaa wasiir ku-xigeenka weydiiyay sababaha keenay inay si gaara beesha caalamka kala hadlaan xaaladda gobolada Jubbooyinka, gaar ahaan maamulkii dhowaantan loo sameeyay uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe. sidaad ogtihiin Puntland mowqifkeeda Jubbaland ku aadan ma ay qarin. waxaanu taageersannahay maamulka laga dhisay Jubbaland hadda ayaa Puntland si weyn u taageersan tahay. waxaa jiray safgaranwaa iyo madmadow ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo Sheekh Axmed Maxamed Islaan uu madaxda ka yahay. marka arrimaha laga wada hadlay waxay ahayd in sidii is-afgarad iyo isfahamsiin iyo soo dhoweyn loogu samayn lahaa dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo run ahaantii dawladda Puntland ay si xooga u taageersan tahay. waxaanuna rabnaa in dhammaan maamulada ka samaysmaya dalka ay hormood ka noqoto dawladda federaalka maamul u samayntooda, ayadoo oo ay u gacan bannaan yihiin dadka deegaanada degani xubnaha ay dooranayaan iyo dadka ay soo xulanayaanba. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa Nairobi sii joogi doona maalmaha soo aadan, iyadoo warar si hoose loo helana ay sheegayaan in gudaha dalkan Kenya ay kulan gaar ah ku yeelan doonaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda u amabaxay safar dhinaca waddanka Jaban. Cabdullaahi Axmed Nuur, Kalsan TV, magaalada Nairobi.